halkaanoo kale 2016 doorashadu markay hal sano ka dhinneed social media waa lagu arkaan u malaynaa khayr allah siiye muxuu hogaamiye cabdulqaadir ayaa hadda inta ka sheegay yacni dad badan oo madaxa oo qaarkood ra'iisul wasaarayaal soo ahaayeen oo in badan oo ka mid ah wasiirro ay soo noqdeen oo in badan oo ka mid ah dawlad goboleedyada ay ka soo shaqeeyeen xildhibaano soo ahaayeen ayaa ku jiray tartanka dawladnimada maalin walba anagu waxaan marna aanan isku dayin isku mashquulinin in aan ka raadino guul in qofka Soomaaliga la caburiyo ama xuquuqdiisa lagu tagrifalo dastuurka professor Xasan Hadaatu inta naga tusayay waa qabyo wax badana ka dhiman wax badanaan caddayn laakiin afartii ku tii loo caddayd haddaan dhowri weyno waxa dhiman goormaan dhammaystirina goormaanan dhowrina dastuurkaas wax badan uu qeexayaa xuquuqda aasaasiga ee muwaadinka Soomaaliyeed gabar iyo wiil sheekh iyo shariif meel kasta uu joogo waa ku tilmaaman tahay xuquuq siman inay leeyihiin waxa annaga maalan hadda dadka siyaasadda Soomaaliya ugu ogaalka badan ama ugu waaya aragnimada badan aan nahay odayaal siyaasadeed si aanay dhibaato u dastuurku wuxuu qorayaa muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay muwaadiniinta Soomaaliyeed xaq u leeyahay inay isu tagaan inay biyo abaabushaan inay urur samaystaan inay shiraan isku tagaan markaas si cad wuxuu u sii leeyahay fasaxna uma baahna si ay saad u yeelaan waa isu tagaynaa inaan dhahno fasax uma baahna ayuu dastuurku qorayaa ومع ذلك ظروف بريها jirtay iyo sida ay u fikiraan dawladdeena annagoo aragnay iyo hogaamiyaasheena dawladda qaarkood dhibaatana ka cararayno fasaxan weydiisana dawladda maanta meeshaan in la isugu yimaado sharciyan fasax ugu ma baahnin laakiin haddana yaan laga balaayo abuurin oo aan laga waxaynin ama dadka Soomaaliyeed intii yaroo xoogaa garaadkoodu siyaasadeed aanu kor ahayn yaan loo been sheegin awgeed fasaxan ka soo qaadanay wasaaradda amniga maanta fasaxaasaan isugu nimidaan meesha ku joognaa waa cararnay waa sii cararaynaa waana laga ninka tooreyda ku eriyey muxuu yidhi war walaalo waxaan la rooraay naftaada ku jirtee iga har dawladda waxaan u sheegaynaa waxaan la roorayno jiritaanka dawladnimada ku jirto dhowraynaaye yay jadda nagu sii geyn hanaga harto markaan ka bacdi muwaadiniinta Soomaaliyeed markaan saas leeyahay annaga markaan leeyahay waxaan ka wadaa muwaadiniinta Soomaaliyeed aad loo tilmaamay wax kasta xaday leeyahay dulqaad kasta xadow leeyahay adkaysi kastana xadow leeyahay in aanan la sameeynin waa rabnaa marka dawladdii sidaas u sutukubaysay annaga waxaan rajaynaynay dawladda oo hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyneenna federalismka inay sii dedejiso oo maanta degmooyinka jamhuuriyadda dhan maamul ay leeyihiin si shabaabka loola dagaalamo oo loo waxaayo federalismka markii la abuuray ugu yaraan caasimadaha dawladaha federaalka waa ammaan qaarkoodna degmooyin badan oo dawladahaas ka tirsanaa ammaan ah oo meelo yaryar ayaa cadow ku harsan yahay dawladnimada in la sii wado oo degmo la geeyaahay waxay ahayd waxa dhimanay ahayd saddexdii lakab ee dawladnimada dawladda dhexe dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka local government waxa la lakabkii dhinaayo ahaa sheekadiisa waxaan u maleynayaa maalin maalmaha ka mid ah inaan la soo qaadin xataa warsee la yeelaa tii jirtay aba ha dhicin ha jabin ilaahu yay burburin ilaahu inta ka celi xalay waxa ka dhacay muxuu ahaay garoowe waa maqlayseen kismaayaan hore ugu soo wareernay kii waxaan ku soo wareernay muxuu ahaay koonfur galbeed hadda galmudug ay ka taagan tahay oo la sheegay dadkii qaarkiis xataa muwaadiniinta ma dhoofi kartid ma bixi kartid dawladda awoodeeda in ay u isticmaasho sidaas waa soo tijaabinay naguma cusba xataa kuma sirmi karno dadka Soomaaliyeed kuma sirmayaan waan soo tijaabinay waa soo joognaa allahumma dhalinyarada 20 jirka iyo maxaan ku raasoo 30 jirka waa laga yaabaa inuu keen laakiin dawlad sida la sheegay BBC lama dhageysan karo leh waa soo marnay yaanan loo celin meeshaas dawladnimo waa sharci haddii sharciga la mari waayo lagu dhaqmi waayo la dhowri waayo dawladnimo ma jirayso dawladnimo waa qaanuun dastuurkaas
iyo qawaaniinta dalka ka jirta dhow qawaaniintuna waxay leeyihiin waxa aan sheegnay muwaadinku lama caburin karo nolosha dawladdu mas'uul waxay ka tahay nolosha muwaadinka inay hagaajisay kor u qaado waxa meeshaan maanta laga sheegana waa maqlayseen dhaqaale ahaana muwaadinkii loo curyaaminaa caqli ahaana loo curyaaminaa fikir ahaana loo cibaado ahaana loo curyaaminaa masaajidda ma aadi karaan xataa haddii shabaabna meel saas ka yeelo dawladdiina dhinaca kale saas ka yeesho war dadkaani muxuu ahaay intee u magaciisa macquul maa marka dadkaan waa dad wanaagsan ummad adduunyadu ummad wanaagsan hadday jirto ummadda soomaaliyeed kowka ah ummadda soomaaliyeed kowka ah dulqaadkeeda deeqsinimadeeda adkaysigeeda waxeeda waad aragteen ummadda soomaaliyeed wanaagga kowka ah markay xad gaartana wax kastoo xoog loo yimaado inay iska celi karto waa la arkay dawlad soomaaliyeed xoog lahaa markay takrifashaa la iska celiyey ajnabi xoog lahaa maalin maalmaha ka mida beledkan aniga waxaan soo joogay oo cimrigayga isiiyey in ka badan 20 helikobtar ayadoo magaalada muqdisho saas u dul taagan tahay maxay u dul taagneed nin jenaraal ciidiid Allah u naxariistay in la soo qabto waa la soo qabo waay maxaa loo soo qabo waay dadka magaaladan jooga dad ka mid ahaan ogolayn in la qabto oo diidanay bas hal nin ma la soo qabo wayna hal nin oo jidka iska laafiyoonaya waa la soo qabo kara sax ma wahay khalad ma wahay inta ma wahay ma laakiin dadkan waxay awoodaan ay daliil u tahay qudrada iyo awoodda dadkan ay leeyihiin ay daliil u tahay waxa ay rabaan inay suubi karaan waxa ay diidan yihiin inay iska diidi karaan marka dulqaadkii xuduudii dulqaadka wali lagu dhex jiraa waxaan rajaynaynaa annagu marka dawladda maxaan ka rabnaa madasha xisbiyada qaran waxay u taagan tahay inta laga dhawaajiyey dabcan guddoomiyahana oo sii sharaxi doono xuquuqda muwaadinka sarraynta dastuurka iyo sharciga caburinta iyo cadaadiska waxa lagu haayo dadka in laga daayo iyo mustaqbal saaxada siyaasadda inay furan tahay dadku siyaasiyan inay hadli karaan siyaasadda saaxal telefishinka ka haysta wiilkaaga shaqada laga soo eriya hooyadan xalay xafladaas ay ka qayb gashay maxaan ku iraadahay waxaa laga eriyaa gabadheeda muxuu ahaay ciidamada booliiska ku jirta laga soo eriya ama militariga laga soo eriya agaasimahani nikaax nin hebel oo mucaarada gabadhiisa loo nikaaxsanay oo ka qayb galay biri shaqada waa laga eriya xaasi waa ka bariyay wixii la dhihi jiray waxaasi waa lagu soo noogay horaa loogu soo noogay wadda sax ma ka joogaan leenahay dawladda maxaan ka rabnaa marka dawladda hal midaan ka rabnaa dawladda qaanuunka inay ku dhaqantaan rabnaa bas dawladdu sarraynta qaanuunka inay ixtiraamtaan rabnaa bas ganacsatadan magaalada joogto tahdiidka lagu hayo maalin walba godka looga yeeraa oo hay-adaha inta la yimaado la leeyahay soo xira ee shaqaalaha xagga keena waa la iskiriin garaynaya keen taleefankaaga adiga dabakac gurigaaga igeey waxaasoo dhan dawladu waa yeeli kartaa waxaasoo dhan dawladu waa yeeli kartaa laakiin goormay yeeli kartaa qaanuunka markay u soo martay yeeli kartaa buugga yarkaa dastuurka aha tilmaamayo goormaa qofka muwaadinkaa la baari karaa gurigiisa goormaa la baari karaa isaga goormaa xorriyadda laga qaadi karaa see looga qaadi karaa war waddadaas le u soo mar waddadaas ha la maro beledkan dawladdeenna maalinna qaanuunka kuma leexanin sideedaba ayadoo ku leexan karta xataa oo wax u diidaya aanay jirin saas uguma leexan jawaari ha la rido mukhtaar roobo ha la soo xiro baydhabasaan waxaas fiiri mukhtaar roobow dawladdan wiilasha maxkamadaha ay u magacaabato u jooga ayada inay uga goyso muxuu ahaaye warqad lagu soo qabto dawladdu ma awoodi waaye etoobiyaan iisoo qaba diyaarad iisoo saar qarrab meel ii geli ilaa maanta waa ku jiraa wax lagu haystay qaanuun lagu haysta lama yaqaan iyo cid haysato waa gar daran yahay iyo waa gar leeyahay iyo maba joogtaba laakiin qofka xorriyaddiisa haddii laga qaado iyadoon sharciga loo marin xabsi ma ahana waa afduub waaye qofkaas waa la afduubtay lama xabisin xabsi waxa waaye dawlaa iskale qaanuunaa lagu galaa qaanuunaana looga soo baxaa xabsiga laakiin haddaan qaanuun lagu gelaynin qofka xorriyaddiisa lagu qaadaayo xabsi ma ahana waa qofoo u afduuban yahay ama kooxoo u afduuban yahay dad badanaana sidaas ah dad badana xabsiyada ku jiro oo sharcigu waqtigu tilmaamayay iyo sidoo u tilmaamayay u xirneen dawladdu waxaan leenahay qaanuunka ku dhaqato waa qodob waa ku dhiirigelinaynaa mar kale iyo mar kale iyo mar kale ixtiraamka dastuurka iyo qawaaniinta dalka waa ku adkaynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa
dadka Soomaaliyeedna waa ku dhiirigelinayna waxaan qaanuun ahayn inay iska diidaan waxaan qaanuun ahayn maya inay dhahaan iska diidaan waa ku dhiirigelinaynaa annagaana bannaanka la taagan waxaan qaanuun ahayn waa la diidaa ama dastuur aan ahayn ama sharciyadaan waafaqsanin ha soo haray siyaasadda dawladda waxaan leenahay ama saaxada siyaasadda soo koobo ama lama shiri kara dhaha ama kala dhaha muxuu yidhi hasha muxuu ahay dabada go'anay goojinaysaay geelaadaad boqol ku tahay ma ahayd gooji ama ha goojinine geela guga da'aayo waa kaa guga dhalaayo waxaan rabnaa dawladda ama dadaan caburinaadhe ama xaggan ka dhacaadhe ama intaan yeelaadhe 2020-2021 doorashaa lagaaga fadhiyaa war cad ma yahay doorashada iyo hay-adaha dastuuriga waqtigooda la kordhinaa inaan jooga jeclaayaa nin odagii dardaaran la yiri ma aniga inaan jooga jeclaayaa madaxda dawladda laga yeeli maayo maalina lagu daraa oo si qaab darra lagu daraa haddii processku uu bilow annaga maalan maxaa nagu dhaca waana lagu eedeeyaa waana la yidhaha dhowr biloodaa kororsateen maanaan kororsan annaga waqtigii loogu talagalay waqtigii ku dhawaayo suurtagalkeedaan processki bilownay processki duruufaha jira awgeed proceskaa jitamay oktoobar soomaha hadda bisha soo socota oktoobar soomaha bisha la soo dhaafay oktoobar xildhibaanaa joogay oo doornaay 2016 oktoobar xildhibaanaa joogay oo doornaay kuwa kalena waxay daydka la dooranayo way garanayeen meesha lagu dooranayo way garanayeen dadka dooranayo way garanayeen marka kororsiimana ma aha dib u dhacna ma aha wax kasta waana lagu dayey waana lagu shukaamiyey inaan kororsiino waa kororso karnay sanad iyo labo waa iska sii joogi karnay meesha annagaa si aan gagabasho lahayn oon leexleexasho lahayn u diidnay maxaan ilaalinaynay dhaqanka dawladnimada iyo kaljarka dimuqraadiyadda in la ilaaliyo oo dalkan uu ka dhaqan galo ka abuurmaan rabnay ee meesha inaan iska sii joogno ayaan waa iska jeclayn laakiin taasaa nooga xoog badnayday